واصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. الله inoogu anfaco aayadahaas quraanka kariimka oo inoo akhriyo Sheekh Usmaan sida aan ku maqlay inta aan barnaamijkan aan bilaaban horreeysa dad fara badan ka soo qayb galay munaasabadan oo ka kala yimiday Sweden gobolladeeda kala duwan ha u badnaadeen gobolkan Soomaaliland oo aan maanta joogno caasimadiisa Nyköping iyo Europe iyo Mareykan ayaa la isla kala yimid xafladan meherka marka dadka ka soo qayb galay oo maatiina marka waxaan rabaa intaas kadib inaan ku soo dhaweeyo kelmadda oo soo dhaweynta inuu halkan ugu soo jeediyo Sheekh Hussein Maxamed Cabdulle Sheekh Hussein Maxamed Cabdulle Hussein wadaad ku soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan u maleynaa mar haddaan isugu nimid munaasabad ka mid ah munaasabadaha la isugu yimaado munaasabadaha ugu qiimaha badan oo guri la unkaayo oo la macnaha sida culimada inoo sheegi doonto masaajid la dhisay meel ka fiican ay isugu imaadeen ma jirto sharafay noo taa dhammaanteen annaga iyo idinka dhammaantiinba waxaan isugu nimid nikaax ku saabsan Cabdiwahaab iyo Mina sida hadda uu noo sheegay walaalkeen Salaad dadka meelaha fogfog ka yimid dadka magaaladan ka yimid iyo magaalooyin kale intaba magaalo ahaan waa laga leeyahay inaan dhaho soo dhawaada laakiin waxaan leeyahay dadka meelaha fogfog ka yimid dadka Nyköping kama hadlay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة الله الدنياشة فدسو ولا هلو السلام عليكم جماعة أنت ماشي سقول تمد والله إن ما تقان نقص غيب قلي فدقا غيب محلة نقول شرفي إن نوي مالان نيرا نصاب بالي مركا وحاربنا تتوقع قبلنا عن ka doonayna waxaan rabnaa soo doonay Mona Ismaan Mina Ismaan Hussein in la siiyo gabadhaas oo aan la rabno keedkeena Cabdiwahaab Maxamed Ibrahim inaan mataqaan gabadhaas sidaa waxaan walaalayaal intaasaa maaragtay muraadkeenu yahay waxaana rajaynaynaa sidii la arki jiray oo qaraabada ka dhaxaysay in ma aragtay nagala gudoomi doono arrintaas maaragtay oo sharaftan aan soo weydiisanay inta la siiyo maaragtay gabadha ugu qiimo badan marka maanta oo la isweydiiyo diibitaankeedana maaragtay waa iska culays yahay oo meesha la iyo cidda la sii hayo mas-uulkeeda aada loo dhooro waayo marka walaalayo intaa naga aqbashaan
annagana waa gabadhaasaan soo doonay annagoo ah Mobleen Ismaan aan gabadhaas soo doonay marka intaasaa waxay siraan xoogaa nin qudbiyaalka meelaha ku fiicnayna miyihi raalli laga hadla barokoolkaas duugaxiya ya dadka wararkaan dhihi jiray may ya marka waa intaasaa mataqaan su-aashayna kusoo gaabay waa mahadsantiin inay aqbali doonaan rajayna ilaa idinkas Yusuf Gele aad u mahadsan yahay maadaama reer gabar soo doonteen waxaa markaas laga maarmaan ah in reerka gabadha looga soo geed fariistay ayagana uu wakiil u hadlo ama oday u hadlo si uu u gudoomo dalabka reerka gabadha soo doontay marka waxaan kusoo dhaweynayaa codbaahiyaha Cumar Xuseen oo ah gabadha adeerkeed kusoo dhawow Cumar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رالي هذا waxaan umaleynaa waa laidin daashay waqti waa laidinku dheereeyey laakiin insha allah waa soo gabagabeehaynaa horta hore waxa waaye tallaabta aad soo qaadeen miisaanka allah idiin saaro maxaa dhaca waxaa ku socotiin amar nabiga calayhi salaatu salaam uu bixiyey nabiga calayhi salaatu salaam waxyaalaha uu tiriyey oo qofka mu'minka ah oo qofka kaloo mu'minka ah xaq ahaan uu ku leeyahay waxaa ka mid ah haddii uu kaa casuumo nikaax inaad tegtid qasab waaye sida haddii uu jirrada inaad soo ziyaaratid ama haddii uu dhinto inaad janaasadiisa raacid xuquuqda qofka labada qofka muslimka isku leeyihiin ayay ka mid tahay horta tallaabta aad soo qaadeen allah idiin saaro miisaanka xasanaadka insha allah ka hor waxaa hawshaan bilaabay mina iyo maaragta sheekh cabdiwahaab ayaa soo bilaabeenoo waxay ajiibeen qayladii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dhahayay yaa macshara shabaab man istadaaca minkum albaa falyatazawaj qayladaasay ajiibeen markay qaylada ajiibeen ayay waxay u tageen ehelka ayay ehelkii u tageen oo dhaheen war annaga qayladaan aan jiibnay in waxaan rabnaa naloo fududeeyo ayaan rabnaa ayay dhaheen de annagana waa ku qasbanaa insha allah maxaa dha ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala wa ankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in yakunuu fuqaraa soo ma ahayn isu guuriya uu yidhi nabi alayhi salaam ilahi subxana watacaala isu guuriya yacni gabdhihiina iyo wiilashiina hadday fuqara yihiin ilaah deeqtoonsiinayo wax ma haysto maya ilaah deeqtoonsiinayo watii uu yiri ilaahi subxaana watacaala ibnu cabbaas wuxuu dhihi jiray war taajirnimo waxaa ka raadisiin nikaaxa ka raadiyo guurka ka raadiyo macnaa marka ma idinku dheeraynayay laakiin bishaaraysta talaabta soo qaadeen ajir ilaahi subxaana watacaala inuu idinka siiyo halaa yaroo lidin daa inaan raalli lahaado insha allah aniga oo marka ku hadlaayo familka kulle adeerkiyaama ahay waa laidin sheegay codsiga ay soo jeedsadeen ay codsadeen in yani muxuu ahay ehelkan wiilkooda cabdiwahaab maxamed yani loogu ogolaado yani muxuu ahay inuu yani guursado gabadha aan anaga waalidka u nahay ee mina ah waan u ogolnahay waana siinay idinkana markaatiyaa ka tihiin insha allah cumar aada u mahadsan yahay kelmadda iyo qaabka quruxda badan ee u ajiibay dalabkii ka yimid reerka gabadha soo doontay waana si caadada soomaalidana waa sidaas qof reer gabar laga soo doontay sida 99.9% u badan tahay in la aqbalo marka hadda Xuseen Wadaad ayaa rabo inuu wax ku daro isaga marka codbaahiyaha kusoo dhaweynaya kadibna barnaamijkan sii wada doonaa wax kale uma qaban runtii waxaad moodaa quraanka waxaa ku jirtay wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila wax meesha isugu yimid waxa maanta la sameynaya dhaqan waana diin labada qof isguursanaysa ehelkooda inay isbartaanna wax waajib u ah dhinaca adeerada wiilka waxaa ka soo yeeray magac dhow oo ah reerka gabadha soo doontay cid ay yihiin iyada waxaa la rabaa marka in markhaati laga noqdo labada reero wax kala guursanayaan waa qolama horta in la yidhaah lafteeda marka waa dad ehela waa dad isdhalay dadka wax soo kala doonta hadda isuguma horeyso waana dad waalid isu ah shiiqa wuxuu yidhi Mobleen Cismaan gabadhana waa abgal cismaan iyo Mobleen Cismaanna waa dad walaalaha isla waa marka waxaan rabaa waxa waaye waxay ka dhinneed
bal in la barto la ogaado laakiin shabada u dambayso oo nikaaxa aqbalkiisa waxaa bixin doona magaalada martida loo yahay insha Allah inta dambe salaada wadi doono aad u mahadsantiin sen aad u mahadsantahay markaan waxaan rabaa nin oday oo qaali ah oo odayaasha magaaladan kamid ah martida u nahay inaan markaan kelmad siiyo si isaga marti loo yahay oo kelmadda ku habboon halkan uga soo jeediyo waa xaaji cali maxamuud cabdi ku soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد والله يبين السلامي دمان ولما عاقلين وحقرت كماش سكون يمد أفريتهم قبل كان سلامي أنا وكيلك مقالة نيل شوبن أنا وكيلك مقالة نيل شوبن آديات مقالة نيل شوبن مكان سوق هذا وأساس سوق هذا ومقالة الصومالية وهي ما هن مقالة قبيل ما هن سوينا ويكور قبتها ولا سكور قبا مركب مقالة وركب بدين ما هي ومقالة الصومالية وهي أنت ماشي فريا الصومالي ولا فريا wiilkii gabadha Soomaaliyeed bay wada siiyaan marka neeshoba waxa laga doonayaa gabadha Soomaaliyeed wiilka Soomaaliyeed in siiyaan sida labada reer hadeertan isku siiyeen haddaan ka sii waxaan uga mahadcelinayaa dadka meesha iskugu yimid oo ummadda ah aniga mahadcelis baa leeyahay tilmaamo malaynayaa dadka meesha iskugu yimid oo ummadda Soomaaliyeed loo yeeray ballantii ku timid aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa boqolkiiba boqol yabada oo ku timaadeen sida oo timaadeen shaqooyinkiina waqtigiisa aan soo siiseen waa ku faraxsanahay dadka martida noo ah oo caalamka ka yimid oo Mareykanka ugu shisheeyo oo Yurub ku xigto Ingiriiska iyo meelahaas ku wada xigaan Sweden iska badaa waa badan yihiin ummad badan baa meeshaas ku timid oo iskugu yimaadeen Cabdiwahaab iyo mina arrintoodii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol waxaan u mahadcelinayaa meeshaan u mahadcelinayaa dhammaan ummaddan sanad ku mahadceliyay haddana waalidiintii dhashay labadooda dhashay wiilka dhalay oo gabadha dhalay oo soo barbaariyay oo keenay markay guur gaareen wada keenay oo isku keenay maanta ummadaas inay isku keenaan aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan labadaas waalidood u sheegay haddana anoo waalidku wada celiyay hooyada caloosha ku soo qaaday 9 bilood ku soo qaaday soo nujisay soo barbaarisay maanta keentay meesha tan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hooyooyinka dhan baan u mahadcelinayaa oo na wada dhalay waa in walba ogaado hooyo inay qaali tahay ogaado waa loo yahay laakiin taa weyn ogaato odaga laftiisu kama marna sababtu wuxuu soo marnayn odagu maamalaantu waxa weeye hooyadu odaga heedaysaa iyada wax ma keenteen marka waa in xogaa odayaasha dadka qaarkoodna u dabcaan anigu warkiyaana dheeraynin waxaan u mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed khusuusan dadka meelaha dheer ka yimid Mareykanka waa daal badan yahay oo ka yimid waxaan filayaa boqolkiiba boqol inay yihiin dad aad iyo aad u nasiib badan yihiin waalidkoodna jooga waalidkoodna jooga ummaddan isku timid aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxaan jeclahay Cabdiwahaab iyo minaba inay gaareen yoolkii ugu horeeyay ugu fiicnaa ee qow wiil iyo gabar isku guursadaan aad baan ugu faraxsanahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh barakallahu fiik وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته intaas kadib waxaan soo gaarnay meeshii ugu muhiimsaneed barnaamijka maanta halkaa u joogno oo ah in oo noo dhaco meherka Cabdiwahaab iyo Mina markaana waxaan ku wareejinayaa codbaahiyaha Sheikh Asad oo ah sheekha isku mehrin doona labada lamaane Sheikh Asad Xaaji Cali الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa inoo bilaaban doona insha Allah sababta aan hadda meeshan isugu imaanay oo ahayd inaan isu guurino wiilkeena Cabdiwahaab Maxamed iyo gabadheena Mina Cusmaan oo aan maanta dhammaanteena rabno inaan farxadooda soo xaadirno maanta farxadda waa laba farxad farxadna waa midii Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalmahan wanaagsan ina waafajiyay oo ah 10 maalmood Ilaahay ugu jecel yahay Ilaahay hadda wuxuu ugu sii jecel yahay amal wanaagsan la sameeyo sanadka oo dhan 10 maalmood Ilaahay ugu sii jecel yahay marka maasha waxaan u fadhinay waxay tahay amal wanaagsan sameyntiisa
marka gurigan aan dhisayno wuxuu ka mid yahay min al-a'maal as-saaliha biidni Illaahi ta'ala. marka waxaan leenahay labada aan isu guurin doona gabadheena iyo wiilkeena fahani'an lakuma in camalkiina wanaagsan uu ku soo beegmay maalmihii ilaahay ugu jeclaa in camal wanaagsan la sameeyo. marka insha Allah haddana waxaan gudagali doonaa haddii ilaahay idmo inaan isu guurino insha Allah gabadheena iyo wiilkeena. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. waxaa ila fadhiya Mina Cusmaan Xuseen aabaheeda Sheekh Cuthmaan ayaa ila fadhiya oo dhinaca midig iga fadhiya. dhinaca bidixna waxaa iga fadhiya wiilkeena Cabdiwahaab Maxamed oo ah arooska maanta aan u guurin doono biidni Illaahi ta'ala gabadheena haddii Ilaahay idmo, maadaama weligeeda uu nala joogo. haddii Ilaahay idmo waxaan siin doonaa insha Allah in uu gabadha isaga si toos ugu mehriyo haddii Ilaahay idmo. marka gabadhiisa oo aabbo uu yahay Sheekh Cuthmaan oo ah Mina Cusmaan ayaa waxaa maaragtay u nikaaxin doonaa Cabdiwahaab Maxamed. marka waxaan rabnaa insha Allah inuu aabbaheeda nikaaxiyo weliga gabadha ah, wiilkeena Cabdiwahaabna uu aqbalo biidni Illaahi ta'ala. ayuu soo dhawow. bismillah bismillah. gabadhayda Mina Cusmaan oo meherkeeda yahay 1 gram oo dahaba inaan meherkii aan kugula nikaaxo yani meherkaas ma ku aqbashay anigana waa kugu nikaaxay. ما شاء الله. الله أكبر. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع فيما بينكما بخير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع فيما بينكما بخير. أيا لنا ويلكنا إلهي سبحانه وتعالى أيا مهتسن. الحمد لله الحمد لله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إلهي سبحانه وتعالى بامهتسن أو إن وافجيي إن سوغارنو طبعا كما الموضوع إلهي سبحانه وتعالى وجعل يهي عمل وناكسن سمينتيسا أو إلهي اللي وجود واذو إلهي وجعل يهي طبعا كان مع الموضوع أي وهري بشهد الحجة. إلهي سبحانه وتعالى بامهتسن ويلكن يقبدنا وافجيي nicmadaasi nicmo kale ugu daray oo ah nicmatu zawaaj. walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmadiisa waxaa ka mid ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu galladaystay, yacni in ilaahay subxaanahu wa tacaala wiilkeenna Cabdiwahaab gaar ahaan uu ku galladaystay isaga iyo xaaskiisa biidni Illaahi tacaala Mina Cusmaan inay maanta noqdaan lamaane ilaahay subxaanahu wa tacaala ku galladaystay. ayaa mahadsan. walaalayaal markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmo ku siiyo, shalay waxay ahaayeen dad single ah, waxay ahaayeen dad maanta yacni waxaan dhihi karnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay guurka hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun. ilaahay wuxuu ku tilmaamay labada qof isguursatay inay isu yihiin dhar.
ma isku mida marka aad dhar la-aan tahay oo aad qaawan tahay iyo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyo jirkaaga wax aad ku asturtid oo aad ku dabooshid oo qurux badan oo ku labisatid markii ilaahay ku siiyo isku mid miya? waa maya. wiilkeena iyo gabadheena shalay hadday hadda ahaayeen dad yacni libaaskii zawaajka asturka iyo cifadii iyo dhoorsoonaantii dad raadinaya hadday ahaayeen maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala waa siiyey. hadday ahaayeen dad raadinaya mawadda iyo raxma jaceyl iyo kalgacal iyo naxariis iyo lamaane hadday shalay ahaayeen maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku galladaystay oo nicmo u siiyey oo ku nicmada ilaahay uu siiyey maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala waa tan oo gacantooday ku jirtaa. hadda walaalayaal markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu arsaaqo zawja saalixa zawj saalix ah marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ilan risiqa ilaahay ay ka mid yihiin soo maaha. marka ilaahay uu kugu arsaaqo nicmo qofka mu'minka waxaa laga rabaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmadaasi ilaahay uga shukriyo. wiilkayga cabdiwahaab iyo gabadheeda mina waxaa la rabaa maanta inay nicmadaasi ilaahay uga mahadnaqaan oy ilaahay xasuustaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmadaasi siiye. waa midda ilaahay uu ina leeyahay lain shakartum la asiidannakum. ilaahay wuxuu ina leeyahay haddaad ii mahadcelisaan oo aan ilaahay u mahadcelinno ilaahay wuxuu leeyahay waa idin siyaadinayaa. marka jaceylkan iyo naxariista iyo asturnaanta maanta kusoo siyaaday nolosha labada lamaane waxaa la rabaa inay ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahadceliyaan si jaceylkaasi ilaahay u barakeeyo, si noloshaasi ilaahay u barakeeyo, si deganaantaas iyo sukuunkaas ilaahay wuxuu leeyahay litaskunuu ilayha. hadda si marka noloshooda ilaahay subxaanahu wa tacaala u barakeeyo oo farxad calaa farxa oo ka dhigo, xubun calaa xub oo ka dhigo, mawaddah calaa mawaddah inuu ka dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaa la rabaa barakada noocaas oo kale waxay ku imaanaysaa horta marka hore inay ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahadceliyaan. marka xigta waxaa la rabaa marka wax la dhisaayo walaalayaal, haddaan guri dhisayno waxa ugu horeeyo aan ka fakirayna waxay tahay gurigaasi inuu noqdo guri aasaaskiisa adag yahay, shubkiisa adag yahay, si uusan u dumin. soo maa guryaha qaar waxaa lagu leeyahay 100 sano ka horaa la dhisay, guryaha qaarna ciyoobay dumaan oo sanad ma gaaraan, guryaha qaarna aasaaskoodii shubkooda adag oo waxay jiraan sanooyin. waxaa la rabaa marka wiilkayga iyo gabadheeda inay maanta laga bilaabo horta mas-uuliyadda ilaahay saare ogaadaan, inay bartaan aasaaska guriga maanta waxa adkeyn karoo shub adag aan dumin ka dhigi kara, jaceyl jira oo lagu waara ka dhigi kara, inay isu noqdaan adduunka xurulcayn ka dhigi kara, inay jannada markay isla tagaanna ay ka fikiraan siday xurulcayn isugu noqon lahayn ka dhigi kara. waa inay ka fikiraan. waana midda ilaahay uu inoo sheegay haddii guriga aasaaskiisa lagu dhiso taqwa wuxuu noqon doonaa biidni illaahi tacaala. diin marka lagu dhiso oo taqwo lagu dhiso wuxuu noqon doonaa guri shubkiisa adag. ilaahay subxaanahu wa tacaala guriga noocaasna waa midda uu u ballan qaaday inay ku noolaan doonaan mawadda iyo raxma, inay noqon doonaan falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. wuxuu noqon doonaa guriga noocaas marka aasaaskiisa sidan oo kale uu yahay. markaad dooratid gabar daatu diin iyo daatu khuluq, markaad dooratid qof daatu diin, rajul saalix ahoo daatu diin iyo daa diinin wadaa khuluqin ah markaad dooratid, waa sida tan la filayo biidni illaahi tacaala. ballanqaadka ilaahay ballanqaaday inuu noqdo guri farxad laga yaqaano murug laga aqoonin, guri yacni laga yaqaano jaceyl aan nacayb laga aqoonin, guri naxariis lagu yaqaano oo aan naxariis daro lagu aqoonin ayuu noqonayaa marka guriga noocaas oo kale loo dhiso. marka waxaa la rabaa aasaaska noocaas oo kale inay maanta laga bilaabo mas-uuliyaadkooda ku darsadaan, oy noqdaan dad isu kaalmaysta cala albiri wataqwa, dad isu kaalmaysta sidii waajibaadka ilaahay saare ay u gudan lahaayeen inay noqdaan, inay garab isu noqdaan sidii waajibaadka ilaahay saare uga soo bixi lahaayeen, siday janno isugu gali lahaayeen inay noqdaana la rabaa.
بإذن الله تعالى نحسبهم كذلك متى سانا أرجينا هدي إلهي إدمو وحاك لو جر ولا ليال وحان رباويل كيغا عبد الوهاب يقبل إذا منا إنا أشاغو شو كان سيقو ضمانتو بالله dadka qaar waxay sameeyaan shukaansigii la rabay almughazala jaceelkii la rabay iyo shukaansiga dhalinyarteena qaar iyo gabdhaheeda maanta qaar way hormarsadaanoo way dabagadiyaan tii guurka ka hor la rabay inay sameeyaan guurka kadib ay sameeyaan midii la rabay guurka kadib in la sameeyay guurka ka soo hormarsiyaan hadda waxaa la rabaa marka hadday dadka qaar dhaqan ka dhigtaan intaan la isguursanin ka hor inay waraaqo jaceyl isu diraan inay isu muujiyaan dareen jaceyl inay isu muujiyaan yacni xiiso kala maqnaanshiyahooda inuu yahay murug isu imaanshiyahoodana inuu yahay jaceyl hadday dadka qaar si qaldan isugu muujiyaan guurka ka hor waxaa la rabaa dadka wanaagsan caatifada noocaas oo kale ah inay isu muujiyaan markay isguursadaan kadib inay jaceyl istusiyaan inay naxariista istusiyaan waa midii nabiga sala allahu calayhi wasalam la dhahay fabimaa raxmatin linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك نحريست ددكو دنا كامودن جعلك مسلمين تدنا كامودن لكن سقفك اديق لمانهاغا اه اي نولشادي كو هوس نول او اد لا نوشاي اسغا ugu xaq badan ma maqasheen in loo sheegay sadaqa la baxsho waxa ugu fadli badan oo ugu khayr badan midii qofka gurigiisa reerkiisa caruurtiisa ugu baxsho Allahu akbar hadiyada markay qofka jaceelka waa cataa inay labada qof wax isisiyaan haddii marka labada qof wax isisiyaan oy sidaasi u fahmaan waxay noqonaysaa axsin ila annaasi tastacbid quluubuhum qofka markaad u ixsaan fashid qalbigiisa hananaysaa waxaa la rabaa qofka inaad u muujisid sida kaluunka ama malayga badda ugu nool yahay haddii laga soo saarana uu dhimanaa soo maaha labada lamaana noocaas inay isugu muujiyaan guurka kadib oo isjeclaadaan oo isshukaansadaan oo kaftan xalaal ee kaftamaan asbaabta guriga adkeynaysa ay ku dadaalaan oo ah jaceelka noocaas oo kale ah asbaabta guriga ay ku dumaysana iska ilaaliyaan walaa tanaazacuu fatafshaluu inay muranka iska ilaaliyaan inay khilaafka iska ilaaliyaan si aysan u fashilmin inay faragelinta iska ilaaliyaan adduunyada aa aragteen waddan la farageliyey oo tadakhulaad lagu sameeyo najaxay ma aragteen waa maya in la isku dira ay wareeraan ma ahane kama qaadaan heshiis laakiin dadka markay ayaga tashadaan oo isjeclaadaan oo isu soo dhawaadaan oo ilaahay isu kaalmaystaan markaasaa waxaa ka dhalanaysa jaceylka noocan oo kale ah ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan dhaho dadka waxay raadiyaan waa hadalkii ugu dambeeyaan raba inaan kusoo gabagabeeyo dadka waxay raadiyaan gabar dhammaystiran ama gabadha waxay raadisaa wiil dhammaystiran markii la dhaho maxaa u guursan weyse wuxuu leeyahay waxaan rabaa qof dhammaystiran inaan helo laakiin waxaan rabaa inaan u sheego ilaahay wuxuu noo abuuray labada dhinac inaan isdhammaystirno marka qofba qofka kale inuu dhammaystiro ayaa loogu talagalay waana midii nabi aadam calayhi salaam uu xawaa ugu abuuray ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u rajaynaynaa gurigan guri barakaysan inuu ka dhigo maalmo la ducaysto maalmihii ugu fiicnaayaan ku jirnaa dhammaanteena aan dhahno baaraka allahu lakuma wa baaraka calaykumaa wa jamaca fiimaa baynakumaa khayr ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka dhiga gurigan gurigii la isku jeclaaday ilaa iyo jannada lagu wada tagay biidni illaahi tacaala jaceylkiisa iyo kalgacalkiisa wajazaakum allahu khayran meeshaasaan kusoo gabagbaynaynaa wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا الكي وغير كبدنا ugu muhiimsanaa gaar ahaan dhalinyarada ku socday shiiqa ayaa meherka kadib noo soo jeediyay marka waxaan leenahay Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahad leh oo farxad noogu soo dhameeyay munaasabadii iyo xafladii meherka ee aan maanta isugu nimid intaas kadib waxaan leeyahay waxaa noo furan qadadii aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kasoo qaybgalka munaasabadan